بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Maxamed Faarax Cabdi waxaan xogeeyaa arrimaha gudaha xisbiga wadani waxaan musharrax u taagan Golaha Wakiillada waxaan ka sharaxanahay gobolka Awdal astaanteedu waa faraska halka faraska dheer ee lagu sawiray sawirka loo ogaada waxaan ku dhashay kuna barbaaray aqoonteedu waxbarasho hoose dugsiga hoose sare ku qaatay magaalada Hargeysa aqoonteeda waxbarashada sarena waxa ku qaatay dowlad deegaanka Itoobiya ee Soomaaliya dowlad deegaanka Itoobiya run ahaantii siyaasadda waxaan soo galay muddo laga joogo dhowr 10 sanadood anigoo runtii aad u yar waxaan ka mid ahaa bahweyntii xisbiga udub oo ka mid ahaa kaadirintiisii ayaamihiisii uu shaqeynayay markii uu baabay markii ururada la furay waxaan ka mid noqday aasaasyaashii xisbiga wadani oo ilaa maanta aan ka mid ahay waxaan ka soo qabtay xilal kala duwan imakana waxaan ahay xogeeyaha arrimaha gudaha xisbiga wadani waxaan u taaganahay Golaha Wakiillada dowladnimadeedu waxa ka kooban tahay 3 tiir tiirka koowaad oo ah fulinta iyo garsoorka iyo sharci dejinta oo baarlamaanka waxa la wada soconaa inay isku milmeen 3 tiir markii ay waayeen golo sharci dejineed oo ku dabagala shuruucda dalka u yaala iyo kala saaritaankooda waxa runtii igu kalifay markaan arkay baahi weyn oo loo qabo xogogaal runtii aanu ahaa golii hore sidoo soo shaqeeyay in sharci dejinteenu noqoto golo adag oo ilaaliya sharciga iyo nidaamka dalkeenu kala socdo waxa jirta baahi weyn loo qabo oo cabashooyin badan ay ka taagan yihiin runtii dalka gaar ahaan gobolka Awdal markaan arkay cabashada soo noqnoqotay waxaan isku dhigay oo aan isiri waad u qalantaa inaad tagto golahaasi si aad uga turjunto matala dhaban uga noqoto baahida gobolka Awdal ka jirta waxaan xogogaal runtii u ahay golii hore soo shaqeeyay waxaan doonayaa in Soomaaliland si sinaana ay wada noolaato taasina waxa keeni karta in sharciga iyo xeerka inoo yaala la wada ilaaliyo waxaana ilaalin kara mudane dhaba oo garanaya waxa loo soo doortay iyo waxa uu golaha u joogo waxaan isleeyahay qayb weyn baad runtii ka qaadan doontaa golaha sharci dejinta isbedelka lagu sameeyo xukuumaddu miisaaniyadda isticmaasho ee golaha uu ansixiyo hadii aan helin mudane xildhibaan ku dabagala golo ku dabagala oo la xisaabtama sida uu maamushay oo meeshii ugu habboon ku maamushay ma sidii ugu macquulsanayd ugu maamushay ma halkii loogu talagalay bay gelisay hadaan la helin golo la xisaabtama waxay nagu dhici doontaa oo aynu runtii nagu soo noqon doonto taa maanta islaana aad ka baxdaan golaha waxaan u sameysanaynaa oo golo sharci dejineed uu yahay inuu shacabkii soo doortay iyo xukuumadda u dhaxeeyo nidaamka ay xukuumaddu ku shaqeynaysaa oo uu ilaaliyo waxaan u baahanahay oo laga maarmaana inaynu helno garsoor madax bannaan sharciyan iyo dhaqaale ahaanba haddii aan la helin garsoor madax bannaan oo dhaqaalihiisa iyo madax bannaanidiisa aan helin waxa runtii nagu dhacaysa inay isku milmaan fulinta iyo garsoorku cabashada dadweynaha ee garsoorkuna soo noqnoqoto waxaanu u baahanahay runtii inaynu helno xukuumad sidii shacabku reebeen ugu shaqeysa iyo garsoor Soomaaliland sidoo rabe ugu shaqeeya iyo golo sharci dejineed oo ku ilaaliya labada intaba waxay u baahan tahay taasi loo helo in la helo mudane dhaba oo garanayo waxa uu yimid meesha waxaan isleeyahay runtii dadkaaga siday reebeen bad matali doontaa waxaan u sharaxanahay aanu gobolka Awdal uma sharaxni cid gaara waxaan idinka doonayaa inaad maanta ii hiilisaan oo digu hiilisaan codkiina si aan aniguna Britooleedu ku hiiliyo tabashadiinana aanu daboolo astaanteedu waa faraska waxaan doonayaa insha Allah bidmilaahi kariim 13 May inaad codkiina ku hubsataan halka faraska dheer lagu sawiray sawirkana aad la ogaataan aad iyo aad baad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh